بسم الله الرحمن الرحيم ومارين أحدها لبيا لباتنك بشا جون سنة كالبكن لباتن يشن أو كبهجن لحيا لباتنك بشا دو الحجة سنة كن أفر بقول أفرتن يلح تاريخ ده هجريد كسو دوادا مركله إيا برامجكي ورر كما أنت قضبضا آن إذي كوبهيننا وحا كمدا maraykanku waxa weerar duqeyn oo ku qaaday xarumaha nuclear-ka ee Iran xilli Tehran ay sheegayso in lagu jiray wada xaajood taasi oo ku tilmaamtay diblomaasiyadda oo dhabarka ablay lagaga dhuftay Iran waxay wacd ku martay inay bixin doonto jawaab cad oo adag oo falkaasi ku wajahan haddaba ma dhaba in si la mid ah madaxdii hore ee Washington Trump uu qaaday tilaabo kale oo dagaal uu kaga abuurayo bariga dhexe uuna ku socdo qaladkii Bush warbixin iyo falaqayn arrimahani ku aadan iyo waxa qobaradu ay ka tiray ayaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxa ka mid ah taliska ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah Iran oo sheegaya in saldhigyada ciidamada Mareykanka saldhiga ay ka soo dooleen diyaaradihii weerarka fuliyay iyo dalalka ay soo dulmareen intuba ay yihiin bartilmaameed ayna gacantooda gaari doonto Iran waxay sheegtay in dhammaan agabkii nuclear-ka laga qaaday xarumaha la duqeeyay ka hor intii weerarka aan la fulin Iran oo ka jawaabaysa duqeynta Mareykanka ayaa laba saalbo oo gantaala waxay ardadiiqaha kaga dhigtay magaalooyin ku yaal Israa'iil waxa ka mid ah Tel Aviv iyo Haifa oo holac iyo burbur u isqabsaday gantaalka Khaybar ayaa markii ugu horeysay Iran u adeegsatay duqeyntii maanta xubno badan oo ka tirsan aqalka Congress-ka iyo kan Senate-ka ee Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay weerarka Trump uu ku qaaday Iran isagoo qancinaya Netanyahu isla markaasna halis gelinaya nolosha askartooda dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhaytayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta American International High School iyo faraca Nairobi haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta kamaal American International High School American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka nimca cabdikariim timacade oo barnaamijka ila talantaalinaysa ayaa inoogu bilaabaysa wararka kuwada safka hore ku jira nimca aad baad u mahadsan tahay mawlid maanta waxaan ku bilaabaynaa xaaladda colaadeed ee gobolka bariga dhexe oo ka sii daraysa wararkii ugu dambeeyay Iran ayaa saacado ka hor laba mar ku riday gantaalo dhanka Israa'iil taasi oo sababtay burbur ballaaran oo ka dhacay goobo dhowr ah saacado yar kadib markii ciidamada cirka ee Mareykanka ay duqeeyeen 3 xarumood oo nuclear ah oo ku yaala Iran raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in gantaaladu ay si toos ah ugu dhaceen dhowr goobood oo ku yaala gudaha Israa'iil waxay intaasi ku dareen in goobo badan oo ku yaala Tel Aviv iyo nawaaxigeeda ay gantaaladu ku dhaceen sidoo kale Haifa iyo Nastaziona oo ku taala koonfurta Tel Aviv si daran loo burburiyay warbaahinta Israa'iil waxa ay xuseen in weerarka gantaalada ee Iran ay ku dhaawacmeen ilaa 720 qof oo laba ka mid ah ay si daran u dhaawacmeen isbitaalka Shalom ee Tel Aviv ku yaala ay kaliya ayaa hadda wuxuu loo qaaday ilaa 12 qof oo ku dhaawacmay weerarka gantaalada ee Iran ay ku beegsatay Israa'iil waxa jira warar laga helayo dhanka Iran kuwaasi oo sheegaya in qasaaruhu intaasi uu ka sii badan yahay war kale warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay in ilaa iyo 20 qof wali ay ku hoos jiraan burburka dhisme toos gantaalka ugu dhacay oo ku yaal agagaarka Nastaziona ee koonfurta Tel Aviv raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegaya in gantaal uu ku dhacay magaalada Haifa ka hor intii aan la shidin seeriga digniinta ka bixiya gantaalada taasi oo haatan lagu hayo baaritaan sababta ay u dhacday arrinkaasi kadib weerarka Iran mid ka mid ah maraakiibtii siday dad Israa'iiliyiin ah ee ku soo socday Israa'iil ayaa dib ugu laabtay
halkii uu ka soo bilaabay safarka intii aanu soo gaarin xeebaha Israa'iil sida ay sheegayso warbaahinta Israa'iil wargeyska Israa'iil Hayom ayaa waxa uu sheegayaa in weerarka Iiraan uu ka koobnaa ilaa iyo 30 gantaal oo ah 2 saalbo oo lagu soo weeraray Israa'iil. dhanka kalena ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa ku dhawaaqay subaxnimadii maanta bilaabida weerarkii 20aad ee howlgalka ballanqaadka dhabta ah ee saddexaad si ay uga jawaabaan weerarka Israa'iil. Waxay sheegeen in weerarkani uu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion, xarunta cilmi baarista biologiga iyo xarumaha taliska iyo isgaarsiinta. weerarkani waxaa loo adeegsaday gantaalo fogfog oo uu ka mid yahay gantaalka Khaybar kaasi oo markii ugu horeysay loo adeegsaday dhulalka Israa'iil haysato sida ay sheegeen. wargeyska Hiddaco Taxrinood ee Israa'iil ka soo baxaya sidoo kale sheegay in ciidamada Israa'iil ay sare u qaadeen heerka feejignaanta dhanka xadka Lubnaan iyaga oo ka cabsi qaba weerar laga yaabo in Xisbullah ay ku soo qaado Israa'iil. markana aynu eegno falcelinta ay soo taraysa ee la xiriirta weerarkii duqeynta ah ee Mareykanku uu ku qaaday xarumaha nuclearka ee Iiraan. waxaa goordhaweyd magaalada Istanbul dadka wararka fidiya kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi. waxa uu ka shaqeeyay in Mareykanka iyo Israa'iil ay jabiyeen xariiq casaan ah oo weyn kadib weerar ay ku qaadeen xarumaha nuclearka ee dalkiisa. wuxuu tilmaamay inay adkaan doonto in dib loogu laabto wadahadaladii waxaana ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay si degdeg ah kulan isugu yimaadaan si arrintan looga manaashaqoodo. Araghchi waxa uu si adag u cambaareeyay gardarrada military ee Mareykanku ku qaaday xarumaha nuclearka ee Iiraan isagoo sheegay in maamulka Mareykanka uu si buuxda mas'uul uga yahay cawaaqibka halista ah ee ka dhalan kara weerarkaasi. waxa uu sheegay in Mareykanku dhaawac uu gaarsiiyay mabda ah in la joojiyo faafitaanka hubka nuclearka wuxuuna ku eedeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu khiyaameeyay Iiraan isla markaasna uu u jilicsanaaday damaca dambiile uu ku tilmaamay inuu adeegsado dhulalka iyo hantida ummadda si uu gaaro yoolalka Israa'iil isagoo ula jeeda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay hadda baadi goobayso maxkamadda dambiyada caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in aamusnaanta laga muujiyay gardarrada noocan ah ay caalamka u horseedi karto marxalad halis ah. annaga ayaana la weeraray waana inaan ka jawaabnaa iyada oo la raacayo xaq aan u leenahay isdifaac sharci ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu intaasi ku daray Iiraan waxa lagu soo weeraray quwad nuclear ah iyo nidaam haysta hubka nuclearka ah waana in si cad loo cambaareeyaa arrintaasi. Araghchi oo hadalkiisa sii wataya waxa uu yiri Mareykanka iyo Israa'iil waxay dhaafeen xariiq casaan ah oo weyn markii ay beegsadeen xarumaha nuclearka ee dalkayaga. ma aqaan xariiq kale oo wada hadal lagu furi karo oo wali harsan. waxa uu intaasi ku daray in xarumihii la weeraray ee Isfahan aysan lahayn waxyaabo nuclear ah ama aan uranium si hoose lagu kobcinin. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo hadalkiisa si ambaqaadaya wuxuu yiri Israa'iil waxay wadaa shaqada wasaqda ah sida uu horey u sheegay ra'iisul wasaaraha Jarmalka oo taageersan Israa'iil. waxa ugu baaqay hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada magaceeda loo soo gaabiyo IAEA in ay gudato waajibaadkeeda qaanuun si looga jawaabo weerarkii qatarta ah ee lagu qaaday xarumaha nuclearka ee Iiraan oo nabadeed. wasiirka Iiraan waxa ugu dambeyn sheegay in qaramada midoobay iyo hay'adda IAEA ay tahay inay si cad u cambaareeyaan weeraradan. waa tahay aynu ku sii soconnay war kale oo culus oo la xiriira xiisadda. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa sheegay waa sida ku xusan bayaanka ay soo saareen nidaamka dambiilaha ee Mareykanka uusan waxba ka baran casharadii dagaaladii hore ee bariga dhexe ayna suurtagal tahay inuu la kulmo cawaaqib daran kadib weerarkii uu ku qaaday Iiraan. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri ku celinta Mareykanka ee qaladaadkii hore ee guul dareystay waxay muujinaysaa karti la'aanta istiraatiijiga ah ee inaan waxba laga qabsan xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira gobolka. waxay intaasi ku dareen iyadoo aan laga baran guuldarooyinkii isdaba joogga ah Washington waxay si toos ah isu keentay safkii hore ee gardarrada iyada oo weerar toos ah ku qaaday xarumaha nuclearka nabadeed ee Iiraan. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan waxay sidoo kale farta ku fiiqeen in meelaha ay soo mareen diyaaradaha Mareykanka weerarka ka qayb qaatay la aqoonsaday lana daba socday. waxay uga digeen Mareykanka
bayaanka iyagoo hadalkooda ku xusaya tirada isballaarinta iyo baaxadda saldhigyada military ee Mareykanka uu ku leeyahay gobolka ma ahan awood balse waxay labalaabeen nuglaanta ay nugul yihiin. waa hagaag daawadayaal waxay nagu soo fool leh warar dheeraad ah oo ku aadan dagaalka Iiraan iyo Israel falcelinta duqeynta Mareykanka uu ku qaaday Iiraan xubintii falanqeynta iyo waliba qodobo kale balse marka hore aynu eegno jawiga cimilada qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalida. aynu ku bilaawno magaalada Muqdisho heerkulka cimiladeedu waa 30 degree centigrade jawigeedu qayb ahaan waa mid qorax leh xawaaraha dabayshana waa 31 kilomitir saacadii. magaalada Jigjiga heerkulka cimiladeedu waa 26 degree centigrade jawigeedu waa qorax daran xawaaraha dabayshana waa 26 kilomitir saacadii. magaalada Hargeysa heerkulka cimiladeedu waa 30 degree centigrade jawigeedu waa qorax xawaaraha dabayshana waa 35 kilomitir saacadii. magaalada Djibouti heerkulka cimiladeedu waa 40 degree centigrade jawigeedu waa mid qorax leh xawaaraha dabayshana waa 15 kilomitir saacadii. magaalada Garissa heerkulka cimiladeedu waa 31 degree centigrade jawigeedu waa daruuro xawaaraha dabayshana waa 19 kilomitir saacadii. magaalada Baydhabo heerkulka cimiladeedu waa 30 degree centigrade jawigeedu waa qorax xawaaraha dabayshana waa 27 kilomitir saacadii. ugu dambeynna magaalada Boosaaso heerkulka cimiladeedu waa 40 degree centigrade jawigeedu qayb ahaan waa mid qorax leh xawaaraha dabayshana waa 22 kilomitir saacadii. waatahay intaynu gudbin qodobada kale ee barnaamijka haatan aynu ku hakano qadar xayeysiis ah. المركز الفرقان waxaad ugu imaanaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka oo hab online ah aad ku dhiganaysid isla markaana ay diyaar kugu yihiin macallimiin ku xeel dheer xifdisiinta ilmaha ee quraanka kariimka waa adiga oo gurigaaga jooga ilmaha iyo adiguba ku barta quraanka kariimka habka casriga ah ee online-ka waa fursad qaali ah oo marle araga oo gurigaaga kugu timid fadlan ubadkaaga u door macallin wanaagsan oo takhasuskiisu yahay quraanka kariimka iyo barashada shariicada islaamka sidoo kale waxaad ka helaysaa barashada axaadiista tafsiirka luqadda carabiga iyo ducooyinka almarkas alfurqaan kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada marka la daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaasheena koowaad iyo labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. hagaag wararkan ugu dambeeya ee haatan soo dhacaya waxaa ka mid ah duqeymo laga soo warinayo wadanka Iiraan. intaynu barnaamijka ku jirnay waxaa lagu soo warramayaa Israa'iil inay duqeymo ka geysatay dhowr magaalo. wakaaladda wararka Noor ee laga leeyahay wadanka Iiraan ayaa soo tibinaysa in qaraxyo laga maqlay magaalooyinka Bushehr iyo Yazd. ciidamada Israa'iil ayaa ku andacoonay inay weerareen saldhigyo military oo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay ku leeyihiin magaalada la yiraahdo Yazd oo ku taal bartamaha ee wadanka Iiraan. sidoo kale waxaa laga soo warinayaa magaalada Bushehr qaraxyo kale. magaalada Tehran dhankeeda bariga iyo deegaanka la yiraahdo Damavand ayaa waxaa la sheegayaa ciidanka cirka Iiraan in ay hawlgeliyeen nidaamyada difaaca gantaalada iyadoo Israa'iil weerar halkaasi ay ku qaaday. wararka arrimaha la xiriira xoogagga Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay inay meesha ka baxday oo ay jabtay xabajoojintii kala dhaxaysay Mareykanka iyagoo sheegaya inay si buuxda u garab istaagi doonaan Iiraan. dalka Mareykanka xubnaha aqalada kala duwan ee Koongareeska iyo Senatka ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aanka madaxweyne Donald Trump oo ku weeraray Iiraan iyagoo ku eedeeyay in dalka uu ku jiiday dagaal cusub oo bariga dhexe ka dhaca. hogaamiyaha dimuqraadiga Hakeem Jeffrey ayaa sheegay in Trump uu dalka u horseeday dagaal isagoo aan haysan ogolaansho qaanuuni ah oo military. senatarka Mareykanka Jen Shaheen ayaa waxayna sheegtay in Trump uu marin habaabiyay shacabka oo u ballan qaaday nabad bariga dhexe ka dhacda balse uu ku guul daraystay. aynu ku sii soconay isla wararkan Nancy Pelosi oo ka tirsan aqalka Koongareeska gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa sheegtay in Trump uu jabiyay dastuurka isagoo si gaar ah ugu lug yeeshay militariga Mareykanka waxayna dalbatay caddeyn ku saabsan geedi socodka khatarta ah ee socda. Thomas Masai oo ka mid ah Koongareeska kana tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee Trump ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka Trump uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn
dhankiisa senator Bernie Sanders ayaa isna waxa uu cambaariyay go'aanka Trump uu ku tilmaamay mid sharci darro ah isagoo xusay in kaliya Congress-ka uu awood u leeyahay in dalka dagaal uu galiyo. war arrimaha la xiriira wargeyskan The New York Times ka soo baxa Mareykanka ayaa soo xigtay saraakiil Mareykan ah oo sheegaya in waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka isku diyaarinayso jawaab aan laga fursan karin oo Iran ay bixin doonto. Iran waxay haystaa baalayir dhowr qaab oo ay uga aargudato weerarka lagu qaaday. Waxaa ka mid ah awood badeed oo ay ku xiri karto marinka Hormuz oo 3,000 oo maraakiibta shidaalka qaaday ee waaweyn ay ka gudbaan bil kasta. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo xigtay ilo sare oo Iranian ah oo sheegaya in inta badan uraniumkii aadka loo kobciyay ee yiil xarunta Fordow la geeyay meel aan la shaacin ka hor weerarka Mareykanka. sidoo kale tirada shaqaalaha goobta Fordow ayaa la dhimay ilaa ay heer aad u yar. waxaana soo baxay waran sheegaya Mareykanku in uu ku wargeliyay Iran ka hor inta weerarka uusan qaadin inuu ku soo wajahan yahay weerar oo xarumahaasi la beegsan doono. waa hagaag daawadayaal haatana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambaysa ee barnaamijka oo ah xubinta falanqaynta taasi oo nalaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga kuwa istaraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo waliba sirdoonka. sidoo kale waxaan ka marnayn xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa Mareykanku waxa weerar duqeyn ah ku qaaday xarumaha nukliyeerka Iran xilli Tehran ay sheegayso in lagu jiray wada xaajood taasi oo ay ku tilmaamtay diblomaasiyadda oo dhabarka ablay lagaga dhuftay. Iran waxa ay wacad ku martay in jawaab adag ay ka bixin doonto falalkaasi. haddaba ma dhaba in si la mid ah madaxdii hore ee Washington in Trump uu qaaday tallaabo kale oo dagaal uga abuurayo gobolka bariga dhexe oo ku socdo qaladkii Bush. Matthew Das oo la taliyo u ah xubnaha urusocodka ah ee Congress-ka Mareykanka iyo tafaftiraha muxaafidka ah Sohrab Ahmari ayaa sharaxay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hadda doortay inuu ku biiro dagaalka qatarta ah ee Israa'iil ay la gashay Iran taasi oo burisay wada hadaladii diblomaasiyadeed ee uu hore ugu guuleystay kana dhigtay inuu ku socdo una ku soo jeedo dalkiisa jihada jahwareer cusub uuna ku qiyaaneeyo malaayiinta Mareykanka ah ee taageeray si uu dib ugu soo celiyo horumarka gudaha dalka ma ahayn inuu ku kaco duulaan shisheeye. maqaal Matthew iyo Sohrabi ay ku daabaceen wargeyska The Washington Post waxa ay ku sheegeen in Trump uu ku guuleystay xogayihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton sanadkii 2016 sababtoo ah waxa uu dhaleeceeyay dagaaladii Mareykanka kadib weeraradii 11 Sebtembar ee sanadii 2001 isagoo ku tilmaamay musiibo. sidoo kale madaxweyne Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday sanadii 2020 sababtoo ah waxa uu ka soo horjeestay dagaalada bariga dhexe. Trumpna waxa uu olole ku galay ballanqaad ah in uu ka hortagi doono dagaalkii saddexaad ee adduunka. dagaalku ma noqon doono mid degdeg ah inkastoo labada nin ee maqaalka qoray ay ka kala yimaadeen labada dhinac ee siyaasadeed ee Mareykanka ee aadka u kala fog. haddana maanta waxay ku midaysan yihiin cabsida laga qabo in ay dhacdo isku dhac toos ah oo dhexmara Iran iyo Mareykanka. waxay sidoo kale isku raaceen in tiro sharci dejiyaasha ah iyo codadka ugu awoodda badan dhaqaaqa mar kale ka dhig Mareykanka mid quwad leh ama MAGA ee ah taageerayaasha Trump ay qabaan. sidoo kale sahan dhawaan la sameeyay ayaa muujiyay in kaliya 16% dadka Mareykanku ay aaminsan yihiin in ciidamada Mareykanku ay faragelin ku yeeshaan khilaafka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil halka 60% ay ka soo horjeedaan. cilmi baaris kale ayaa sidoo kale muujisay in inta badan dadka Mareykanka ay taageersan yihiin diblomaasiyadda si wax looga qabto barnaamijka nuclearka Iran halkii dagaal laga doorbidi lahaa. shakhsiyaadka dagaalka u ololeeya waxay sawirayaan weerar degdeg ah oo lagu beegsanayo xarunta nukliyeerka Iran ee Fordow iyaga oo ku hadlaya hadallo buunbuunin ah oo xasuusinaya warkii hore ee ahaa dagaalkii madaxweyne George W. Bush ee Ciraaq uu noqon doono dalxiis balse xaqiiqadu ay tahay in dagaal Mareykanku uu la galo Iran uusan noqon doonin mid fudud ama mid sahlan. maqaalka ay labada nin daabacinaya waxay ku sheegeen waa sida ay hadalka u dhigeen inkastoo ciidamada Israa'iil ay guulo ka gaareen maalmihii hore ee dagaalka sida ay ciidamada Mareykanka uga gaareen Ciraaq. mushkiladu waxa ay bilaabanaysaa marka uu dagaalku sii socdo oo uu daruurta kala fogaato.
dagaal aan loo baahnayn qorayaasha maqaalkani waxay leeyihiin xitaa haddii diyaaradaha Mareykanku ay weeraraan Fardo oo maamulka Trump uu arko in hawlgalkaasi uu noqon karo mid hal mar ah wax walba oo aan loo baahnayn oo ay dhici karaan hoggaanka Iran wuxuu dareemi doonaa cadaadis ah in ay sii kiciyaan dagaalka waxayna xiri karaan badda Hormuz meel ay maraan ku dhawaad 20% maraakiibta shidaalka adduunka sida waxayna beegsan karaan saldhigyada ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe iyagoo adeegsanaya gantaalo casri ah oo weli saameyn ku yeelanaya ama ku yeeshayba weerarada Israa'iil lagu hayo maqaalka ayaa waxaa lagu sheegay sidoo kale in weeraradaasi lagu qaado saldhigyada Mareykanka ay qasab ka dhigi doonaan in Washington ay ka jawaabto taasi oo keeni karta dagaal kale oo bariga dhexe ka qarxa iyada oo jeel dhan oo Mareykan ah loo hurayo dagaal aan loo baahnayn halka Israa'iilna ay hiigsanayso burbur ama isbedel ku yimaada nidaamka Iran taasi oo dhalin karta foodo horseedi karta xasilooni darro ka dhacda dalalka jaarka la ah Iran iyo danaha Mareykanka waxayna sababi kartaa malaayiin qaxooti ah oo u gudba Yurubta dhibaataysan Trump waa inuu hadda cadaadiya Israa'iil si ay u joojiso weerarka ay dibna ay ugu laabato dariiqa diblomaasiyadda sababtoo ah habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo in Iran ay hesho hubka nukliyeerka ah taasi oo ay iyagu ka soo horjeedaan sida ay uga soo horjeedaan dagaalka waa in heshiis adag oo xadida barnaamijka Iran si dhowna loo kormeero la galaa warbixintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii wararka maanta oo toos aad kala socoteen istuudiyaasheena koowaad iyo labaad anigoo Mawlid Xaaji Cabdi iyo Nimca Cabdikariim Timacadi ayaana barnaamijka idin soo gudbinayay si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka mar kale nabadgelyo xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano kuna takhasusay xanuunada wadnaha caloosha iyo dheefshiidka kilyaha sambabada iyo lafa xanuunka Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta sidoo kale xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo takhasusyo kala duwan leh waxa intaa dheer inaad xarunta ka heli karto adeegyo kale oo caafimaad oo ay ka mid yihiin daaweynta jirdhiska physiotherapy daaweynta cudurrada maskaxda iyo dareenka sida walwalka murugada waswaaska iyo trauma xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ah ee Shepherd Bush wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda adreeska xaruntu waa 108 Goldie Hawk Road London W12 8HD soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com